ciidamada daraawiishta dowladda Puntland Soomaaliya guutada konton iyo afraad ee ku sugan degmada Ceelbu ee gobolka Sanaag gaar ahaan saldhigga Dani ayaa weli waxay ku jiraan howlgalkoodii ay ku daba joogeen xaalufinta deegaanka. galabnimadii shalay galab ahayd ayay waxay u baxeen kormeer markaasi ku aadan sida ay u soo gubi lahaayeen dhuxusha laga shidayo hareeraha degmada Ceelbu kadib markii bulshada xoolo-dhaqatada ay ciidanka la soo xidhiidheen in aagga goox dheere iyo waqdariyo laga shidayo dhuxul ayay ku baxeen. kadib waxay halkaasi ay ku soo gubeen dhuxushii halkaasi laga shidayey waxaana ku soo qabteen maxbuuskii markaasi dhuxushaasi shidayey waana kan taliyaha guutada konton iyo afraad Mustafa Siciitoor oo ka warbixinaya isagoo goobta jooga sidii ay markaasi wax u soo qabteen iyo sida ay wax u dhaceen. isla sidoo kale halkaasi waxaa ka hadlay ninkii lagu soo qabtay dhuxushan ama falkan khaatan kula kacayay deegaanka oo markaasi dhuxusha ka shidayey ayaan su'aal wax ka weydiiyey inkasta oo saalaha uusan jawaab saaxiibay geeda la jaro iyo dhuxul la shido iyo gobolka qoyan baa hadda aragtaa waxaanu ku qabanay waa kan odagii shiday waa Siciid ile ciidanka daraawiishta difaaca oo Puntland afraad saldhigga Dani waxaanu ku qabanay waa kan maxbuuskii isaga waxaan waan uga ducaynaynaa isagana wuxuu ku kalifay halka ka sheegi doona insha Allah dalka waa in laga shaqeeyaa oo sidoo tahay looga shaqeeyaa oo dalku wuxuu wax ku yahay dadka waxay wax ku yihiin dalka iyo dunyada maama Ingiriis waxay tahay associate you read sida aad u beerto ist out wixii fudud ku soo gaarna si fudud kaga baxay marka hawshu waa soconaysaa wariga waa ku mahadsantahay saxaafadda aad u nala garab taagan afraadka saaco dalka ugu shaqeynayso سعيدنا واقع وحي كل في هالك كور بحنايا صدق حياة وش هذا كله من بركة هذا الرا عضي وحوي ساسي سكنا بطل حضر بس قفل هذا أنا بعطيه عقل بالله الحي مركا نوقف قلت أنا كنت سكون منور عيان كلا كل ما عيان مركا حق الدين تيو حق النذرة لماذا هو يحبه كان ينام كسرين تاوه مركا صرت وقف حياتك مركا مرسوم ciidanka daraawiishta dowladda Puntland guutada konton iyo afraad ee ku sugan degmada Ceelbu ee saldhigga Dani ayaa waxay ku mareen tan iyo inta ay ka soo afjari doonaan xaalufinta deegaanka inay hawshan ay wada doonaan waxaana ugu dambeyntii maxbuuska la soo qabtay maanta laguna soo qabtay faldambiyeedkaasi oo ku jira lagu soo xiray saldhigga ciidanka daraawiishta aagga Sanaag ee dowladda Puntland. Axmed Cabdillaahi Ciise Axmed Cashuur degmada Ceelbu ee gobolka Sanaag.